xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa toogasho wadareed ka dhacday waqooyi galbeed dalka Nigeria. 50 ruux ayaa lagu dilay weerarkan oo ay fuliyeen kooxo hubaysan. dad kala laayay oo kaniisad ku sugnaa Axadii shalay ayaa isugu jiray haween iyo caruur, waxaana sidoo kale jira dhaawacyo badan oo la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ee kaniisadaasi u dhoweyd. Ibukun Odunlami oo ah afayeenka booliiska ismaamulka Ondo oo ka hadlaysay dhacdadan ayaa xaqiijisay in kooxdan hubaysan ay dadkan laayeen, baaritaano dheeraad ahna inay hayaan ayay warbaahinta u sheegtay. gudoomiyaha ismaamulka Ondo ee waqooyi galbeed dalka Nigeria, Arakurin Oluwarotimi, ayaa booqday goobtii mashaqada ay ka dhacday, wuxuuna tilmaamay in falkan uu ahaa mid aad u naxdin badan oo xasuuq ah, isla markaana tallaabo rasmi ah ay ka qaadi doonaan dambiilayaashii falkan ka dambeeyay. kaniisadan oo dadka aaminsan diinta Katoliga ay ku cibaadaysanayeen ayaa mar qura waxay isku bedeshay goob murugo ay ka muuqato, iyadoo raggii hubaysnaa si aan kala soc ahayn ay toogashada u fuliyeen. madaxweynaha dalka Nigeria, Muhammadu Buhari, ayaa si adag u cambaareeyay kooxdan hubaysan ee dilwadareedka geystay, isagoo u rajeeyay kuwa dhaawaca ah in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u boogadhayo. Nigeria si joogto ah waxaa uga dhaca dhacdooyinka la xiriira weerarada noocan oo kale ah iyo weliba kuwa kale ee afduubka ah ee lagula kaco ardayda iyo dadka kale ee dawladda u shaqeeya. xaaladda ayaa weli kacsan, dawladdana baaritaanada ay ku dhawaaqday weli wax natiijo ah kama aysan soo bixin.